gobollada waqooyi galbeed sida Togdheer, Nugaal, Mudug iyo Galguduud waxaa ku habsaday abaar loo bixiyay abaartii dabadheer. xoolihii reer guuraaga iyo dadkaba waxay u la'aanayeen si daran. waxaa markiiba la dalbay gurmad degdeg ah oo dhibaatada loogu gurmanayo. waxaa waajib noqotay in la badbaadiyo dadka abaartu ku ceertoobay oo shacabka iyo dawladda ay u gurmadaan. dalkana waxaa soo gaaray macaawino dalal kale laga keenay. goobihii ay abaartu ku habsatay waxaa si kumeel gaar ah loogu sameeyey xerooyin dadka lagu siinayo raashin, biyo, dhar iyo daawoba. madaxweynihii dalka Maxamed Siyaad ayaa markiiba soo booqday gobolladii ay abaartu ku dhufteen si uu u qiimeeyo saamaynta ay abaartu ku yeelatay bulshada. wuxuu markiiba soo booqday dadka ay abaartu waxyeelaysay. kacaanku wuxuu deeq iyo taakuleen ka helay xilligaasi midowgii Soofiyeed, wuxuuna ku guulaystay in dadkaasi gurmad degdeg ah loo fidiyo, isla markaana la dejiyo deegaanada u dhexeeya labada webi ee ku habboon tacabka beeraha iyo meelo kale oo ku yaalla xeebaha badweynta Hindiya iyagana ku wanaagsan kalluumaysiga. Soomaaliya waxay leedahay laba webi oo lagu kala magacaabo Jubba iyo Shabeelle, kuwaasi oo qayb ka ah waraabinta beeraha, waana halkaani meesha reer miyiga loo qorsheeyey in la dejiyo. in dadku abaartu ceertaysay goobahaasi laga raro ma ahan wax sahlan. 120,000 oo qof oo iskood isku xilqaamay ayaa qayb ka ah soo raridda dadkaasi loo rarayo goobihii loo cayimay in dib loo dejiyo. beeralayda mustaqbalka waxaa loo asteeyey Kunturwaare, Sablaale iyo Dajuuma, halka kalluumaystadana loo qorsheeyey Baraawe, Eyl iyo Cadalle. waxay ahayd shaqo aad u culus oo dhib badan sidii dad reer baadiye ah looga dhigi lahaa beeralay iyo kalluumaysato. sidaas darteed 18 Julaay sanadkii 1973 dawladda waxay bilowday in dadka ay u soo rarto goobihii loo qorsheeyey in la dejiyo, halka dib u dejinta dadkaasi ay ka qayb qaadanayeen gawaari gaaraysa 600 oo kuwa xamuulka ah. gawaaridii xamuulka way isdaba kaceen iyagoo u jeehaystay dhanka koonfurta. maalmo yar kadib gawaaridii ugu horeysay waxay soo gaareen Kunturwaare, iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen dadka deegaanka Kunturwaare nolosha cusub ee u bilaabanaysa dadka reer miyiga. waxaa dadkii loo dhisay teendhooyin kumeel gaar ah inta nolosha halkaasi ay kala qabsanayaan, halkii kuwii reer miyiga ahaa ee soo rarta dhistooda ayagana ay dhulka dib ugu mudanayaan aqal Soomaaligoodii. reer miyigii loo qorsheeyey inay kalluumaysato noqdaan waxaa iyagana loo jiheeyey dhanka xeebaha. maalmo yar kadib gawaaridii xamuulka oo jidka ku soo jiray maalmo badan waxay aakhirkii soo gaareen goobihii loo cayimay. dadkii ugu horeeyey waxaa lagu dejiyey Cadalle, waxayna dadkii reer miyiga ee qaxootiga ahaa loo soo dhaweeyey si aad u heer saraysa. waxaa loo dhaqaaqay in dadka reer miyiga la baro sida badda loo galo isla markaana loo dabaasho, halka badankood dadkaasi aysan weligooda arag badda, middaasi oo dhibaato kale ku ahayd dawladda.
reer miyigii beeralayda laga dhigayey waxaa loo tababaray iyagana sida beeraha loo abuuro. Kunturwaari iyo Jujuuma waxaa laga diyaariyey dhul gaaraya 18,000 oo hektar si dadkaasi ay wax ugu soo saartaan noloshooda. Kalluumaysatada waxaa la barayay noocyada kala duwan ee kalluunka badaha Soomaaliya laga helo, halka beeralaydana la barayay noocyada dalagga iyo dhirta guud ahaanba. reer miyigii kalluumaysatada loo tababaray waxaa qasab noqotay in marka hore bariga lagu tababaro sida shabaqa loogu tuuro badda, maxaa yeelay waxaa aad u adkaatay kalsoonida ay ku qabaan badda gelisteeda. muddo 3 isbuuc kadib reer miyigii kalluumaysatada loo tababaray waxay u dhaqaaqeen inay soo kalluumaystaan maanta. dhanka kale beeralaydiina waxay duugayaan dalagii ay doonayeen inay abuurtaan, waana shaqo ka adag midda kalluumaysatada. kalluumaysatadii howlgalkoodii ugu horeeyay waa ay ku guulaysteen, waxayna ogaadeen qiimaha kalluumaysiga iyo nimcada badda Soomaaliya ceegaagta. beeralaydiina iyagana dhankooda waa ay guulaysteen oo waxaa u soo baxay dalagii ay abuurteen. Soomaaliya waxay ku tilaabsatay horumar dhaqan dhaqaale oo dhan kasta saameeyay, waxay noqotay dal sharaf iyo karaamo ka leh dunida oo dhan, gaar ahaan qaaradda Afrika. heybadii Soomaaliya adduunka ku yeelatay darteed bishii Juun 1974 waxaa xamar lagu qabtay shirkii OAU-da, waxaana guddoomiye sanadeed loo doortay madaxweynihii Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre. xilligii uu Siyaad Barre hayay xilka guddoominimada ururkaasi wuxuu si hufan ugu soo dhalaalay xilkii, waxaana sanadkaasi la hirgeliyay halkudhigii ahaa Afrika hurdada ka toos oo isu tasho. Afrika hurdoy cadow ku heriye hurdoy hadiyad ade hurdoy hadbaun aye hurdoy ahoy Afrika hurdoy cadow ku heriye hurdoy